السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada saaxiibada qiimaha badan oo meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barashada Excelka 10kii labaad. Muuqaalka waxaan ku baran doonaa fiiska ugu horeeya Excelka. Ugu horeynta marka Excelka soo kicino qaabkan ayuu nagu soo baxayaa. Marka qaabkan nagu soo baxo waxaan maanta baran doonaa fiiskan ugu horeeya qaybin ka kooban yahay iyo waxyaabaha magacyadiisa la kala yiraahdo. Waxaan ku soo bilaabi doonaa meesha ugu koreysa. Ugu horeynta haddaan ku dhufto file qaybahan waxaa dhici karta Excelka aad iga daawanayso iyo kaygu inay xogaa kala duwan yihiin balse waa isku meeshii. Haddii aan ku soo bilaabo halkan ugu koreysa save waa marka waxa save gareynayso oo barnaamij aad qoratay marka aad save gareynayso waxaa ku dhufanaysaa save as markii aad taabato wuxuu ku kala duwan yihiin save iyo save as waxay ku kala duwan yihiin. Save waa inaad save gareyso asagoo wax magac aan lahayn. Save asna waa inaad save gareyso isagoo magac wata. Waxa ku xigta open waa inaad furato barnaamij ku furnaa. Close na waa inaad xidho. Information kan info waxa laga soo gaabshay information ku waa hadda halkaan oo kale tusaale ahaan oo kale properties hadda barnaamijka aan qoranayo size-kiisa title bar-kiisa tag-kiisa iyo categories-kiisa qaybta uu yahay. halkaan rotateskiisa intuu yahay last xilli ugu dambeeyay create-kiisa last bind-kiisa. Info-gan waa barnaamijkaaga information-kiisa ama xogtiisa halkaan ay ku ogaanaysaa. haddii aad doonayso inaad ku xidho password haddii halkaan aad doonayso iyo haddii waxyaabaha mid kamid aad doonayso intaba. haddii aan soo gudbo recent waxa weeye inaad ogaato midkii ugu dambeeyay aad isticmaalaysay barnaamijka ugu dambeeyay aad isticmaalaysay ama kii ugu dambeeyay aad isticmaalaysay ayaa waxa la yiraahdaa recent place-na waa inaad tagto desktop-kaaga aad tagto halkaasna aad ka aragto barnaamijka ugu dambeeyay isticmaalaysay. haddii aan ku dhufto new tagto waxay ka dhigan tahay adigoo doonaya inaad samaysato bog cusub ama worksheet cusub. markaad doorato new wuxuu siinayaa waxyaabaha faraha badan. halkaan ayaad ka dooranaysaa midka markaas aad adigu doonayso inaad isticmaasho. haddii aad doonayso black workbook iyo haddii aad mid kale doonayso haddii aad doonayso inaad abuurato warqad cusub halkaan ayaad ku dhufanaysaa new. printer-kana waa marka xogtaada aad ku dirayso printer oo aad doonayso inaad soo saarato ama tusaale ahaan oo kale waxaad diyaarisay 10 waxaad doonaysaa 10ka inaad ka dhigto warqado oo kale waxaad ku dhufanaysaa printer. markuu kuu soo baxo halkan waxaad ka dooran doontaa insha Allah saa ku gaari doona 10 soo socda page-kiisa iyo cabirkiisa iyo waxyaabaha ku tacalluqa. halkan save and send haddii aad ku dhufato wuxuu ku soo saarayaa optionada faraha badan. optionada waxay kala yihiin dib aan ku ogaan doona insha Allah. haddii aad doonayso inaad save gareyso ama aad ku save gareyso Gmail ba ama website ba ma waxa ku printer ba ku daganaysaa ma table ba ku dhufanaysaa ma waxa sameynaysaa PDS oo PDF laga wado ama XPS document miyaad doonaysaa inaad ku waxayso sida halkan ku taxanba. haddii helbidan option kana oo meelaha lagu option gareeyo oo wax laga bedelo haddii aad doonayso inaad wax ka bedesho oo qaybo kamid ah ku soo darto oo option-ku waa setting-kii Word-ka ama Excel-ka. ugu horeyntii horta waxaan hadda noo muuqda oo horteena ka muuqda oo cad oo weyn waxaa loo yaqaanaa worksheet. asla fahano worksheet waa waxaan noo muuqda cad waxaa loo yaqaanaa worksheet. haddaan ku dhaho worksheet baan maraya ama worksheet baan taaganahay waxaan ka wadaa waa warqada cad. qaybtan ugu sarreysa waxaa loo yaqaanaa title bar. waxaad ka arkaysaa barnaamijka kuu furan magaciisa. halkan hadda waxaa ku dhex jirnaa book waxaan ka jirnaa Microsoft ayaa kaga jirnaa waa noo active gareysan yahay. qaybtan waxaa loo yaqaanaa quick access toolbar ayaa loo yaqaanaa qaybtan waxaa loo yaqaanaa quick access toolbar. waxaa ku xiga qaybtan halkan laga bilaabo ilaa halkaas intaas waxaa loo yaqaanaa ribbon. qaybtan ku calaamadsan waxaa loo yaqaanaa ribbon-ku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan sida halkan kuwan kor waxa la dhahayaa tab ayaa la oranayaa. hadda waxaan oranayaa tusaale home tab ayaan tagayaa insert tab page light ayaan taaganahay formulas data review and view. kuwan waxa la dhahaa tab waxay ku dhex jiraan ribbon-ka bay ku dhex jiraan. hadhow saa u kala ogow kuwan waxa la yiraahdaa haddaan waxaan joogaa home tab ama insert tab wuxuu ka tirsan yahay
oo ku dhex jira ribbonka. haddii halkaan aan imaado saddexdan barnaamij waxaa la kala yiraahdaa kan close oo markii aad doonayso inaad iska xirto. haddii hadda meel aad soo furto tusaale ahaan oo kale, hadda waxaan soo furanayaa setting oo kale, markii aan doonayo inaan iska xiro barnaamijkaas tusaale ahaan oo kale saddexdan barnaamij haddii halkaan aan ku baractikeyno, kan waxaa la yiraahdaa close waa xirid, kana waxaa la yiraahdaa restore down. hadduu saa yahay ka waran, hadduu saa yahay magaciisa waxaa la oranayaa maximize, laakiin hadduu saa yahay magaciisa wuxuu noqonayaa restore down. kana waxaa la yiraahdaa minimize, waa dejin, waa hoos baa u dejiyay. haddii aad doonayso barnaamijka inaad dejiso hoos baa u dejinaysaa, saa ku dhufanaysaa. haddii aad doonayso inaad xirtona aqalda ku dhufanaysaa. hadda waa iska xidha barnaamijkii. kana haddaan rabo inaan dejiyo waan ku dhufanayaa, hoos buu u degay. marka ha isku khaldin, hadhow magacyadooda ha isku khaldin. kan waxaa la yiraahdaa saa markuu yahay oo saa u furan yahay waxaa la yiraahdaa restore down baa la yiraahdaa. hadduu saa yahay oo xoogaa haaf yahayna waxaa loo yaqaanaa maximize. kana waxaa la yiraahdaa minimize. haddii halkan weli aan u imaado qaybahan midaan dheer ama midaan waxaa loo kala yaqaanaa scroll bar. scroll bar waa qaybtan. scroll barka laba loo kala qaybshaa, inuu yahay vertical iyo inuu yahay horizontal. vertical waa qaybtan istaaga ah. qaybtan waxaa isticmaalaysaa tusaale ahaan markaa qorto warqado aad u fara badan oo aad doonayso hoos inaad ogaato, halka ayaa qabanaysaa adigoo lift xajinaya ayaa hoos u wadaysaa ilaa aad hadda ugu dambeeya. waxaa la dhahaa vertical bar. horizontal waa midkan waxaa loo yaqaanaa horizontal bar. tusaale ahaan markaa aad doonay inaan page kala tago, inta ayaan qabanaya, haddana inta ayaan u jeedaya. haddii aan kasoo kaco tusaale ahaan hadda daha ku dhufto meesha yarta iyo calaamadsan cell baa la oranayaa, cell meeshaas yarta iyo calaamadsan waxaa oranayaa cell. marka halkan waxaa kuu taxan oo ujeedaa a b c d e f ilaa iyo ta u dambeysa oo u ayaa halkaa damba taxan. halkana waxa ii taxan 1 2 3 4. maxay kala dhigan yihiin? waxay kala dhigan yihiin hadba meesha aad tagto ayay kuu sheegaysaa inaad joogto. hadda waxaan joogaa meeshan waxaa la yiraahdaa si calaamadsan cell baa la yiraahdaa, bara'yada balka xunka cell baa la yiraahdaa. cellku laba ka koomaa. wuxuu ka koomaa column oo istaagaan ah. column waxaa la yiraahdaa hadda d baan taaganahay, halkan xariiq baa ka muuqata, xariiqdaas inta waxaa la yiraahdaa column baa la yiraahdaa. haddana halkan laga bilaabo halkan lagu joojiyo ilaa intaasna waxaa la yiraahdaa row baa la yiraahdaa. column iyo row saas weeye. marka hadda waxaan taaganahay columnka d si aan rowgiisa waxaan joogaa sagaalaad tusaale ahaan. hadda waa kaas oo kale. marka saas ayaa la kala oranayaa. bahalkaas maxaa la yiraahdaa cell. hadda kuwaana waxay ka turjumayaan hadda meesha joogta inay kuu sheegaan meesha joogtay waxaa joogta ilaa bahalkan wuxuu leeyahay xariiq fara badan. hadda daha ku dhufto waxaan joogaa columnka m rowgiisa 13 hadda joogaa. halkan baan ka arkay iyo halkan. halkana waxaa la yiraahdaa halkan formula bar ayaa kala yiraahdaa. waxay kuu sheegaysaa tusaale ahaan haddii halkan hadda wax ku qoro, halkan u jeedaa, halkan ka soo baxaysaa, halkan waa ka soo baxda waa arta. marka waxaa la yiraahdaa halkan waxaa la yiraahdaa ila baro formula bar. haddii halkan u nimaadno halkan waxaa la yiraahdaa 9 box. halkan waxay kuu sheegaysaa hadda meesha aad joogto. haddii halkan ku dhufto oo halkan ay imaado, hadda waxaan joogaa k columnka k, waxaan kasii joogaa rowga 15 ka joogaa. bal aan fiirino waxaan joogaa columnka k, waxaan kasii joogaa rowga 15. intaas waa isla fahnay. haddii halkan aan imaado qaybtan u hooseysa waxaa la yiraahdaa zoom ayaa la yiraahdaa, oo waa mid meesha wax laga soo dhaweyn lahaa. haddana haddaan soo dhaweeyo waxaa soo dhawaanaya. haddii aan fogeeyana
fogaanaya oo kaa waxaa laga soo dhaweeyaa lagana durkiyaa bahalkan xariiqda yarka waxaa la yihahdaa slider zoom ayaa la yidhahdaa kana waxaa la yidhahdaa level zoom ayaa la yidhahdaa waa levelka hadda uu joogo cabirkaagu ayaa waxaa la yidhahdaa level bar intaan yarkana waxaa la yidhahdaa view shortcut toolbar ayaa meesha yarta view shortcut toolbar ayaa inta yarta loo yaqaana haddii halkaan imaado waxaa loo yaqaanaa status bar ayaa loo yaqaanaa qaybtan haddaba saaxiibka qiimaha badan waxaan farayaa waa kala fahantay wejiga hore ee barnaamijka loo yaqaano excelka insha Allah tacaala waxaan gurgudi doonaa haddii eeba una ogolaado qaybaha ku xiga sidaas iyo amaana Allah